الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya gaar ahaan warbaahinta qaranka oo habeen maalin u taagan sidoo kale ciidamada qaranka oo nabadda u taagan in alla intii dalka guud iyo daljirnimo ku jirto dhan waa salaamaya inta kadib waxa loo baahan yahay si laaba in isla hadalno ummadda Soomaaliyeed waxa jira maalmahan xalay iyo maanta waxa ku soo koray magaalada dad dhaqan Mooriyaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray marka ragga madaxda ah waxa baabulaya waxa aan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqa karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oo aysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disciplin iyo sharci nidaam lahayn oo magac Mooriyaanimo ku socda waxa kale oo gabaad u naqa karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacida iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is abaabulay oo magac sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyay bulshada Soomaaliyeed lagu baabi'iyay loogu gabaad loo noqday haddana waxaa noo muuqata in ragga wax abaabulaya aysan ku xisaabtamin inay gabaad u noqon karaan dad aan ku jirin gacmahooda oo aysan maamulin oo aysan birri wax ka maqlayn haddana aan magacooda ku socan inay inta ku soo hoos gambadaan ay bulshada wax yeeli karaan waxaa nooga sii daran oo aan rabaa inaan aad u adkeeyo in alqaacida iyo daacish oo waddanka aan ognahay dhibaatada ay ku hayaan meel kasta oo abaabul aan sharci ahayn oo midka dawladda ka baxsan lagu qabto inay gabaad u noqon doonaan ay ummadana wax yeeli doonaan ragga hadda dhahaya dawladdan ka soo horjeednaani ay dhici karto hadhow intay ayaga gacmahooda iyo farahooda wax ka baxaan inay ayagu gadaal naga soo maraan ay dhici karto arrintaas aadaan uga digaynaa waana ku celcelinaynaa dawladduna ciidanka ay hayso iyo mas'uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay waxaa loo nabadooninaayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kale mas'uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaata dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon dad aan disciplin lahayn oo sharci aqoonin oo aan la maamuli karin haddana aan maamulnayn in gabaad loo noqdo in aad la isaga ilaalin u baahannahay ummadda Soomaaliyeedna mar kale reer Muqdisho anoo la hadlaya nabaddii ay u soo rafaadeen oo u soo dhibtoodeen si fudud yeesan gacmooda uga siibanin si fudud yeesan uga siibanin dawladdu waxay u turaysay bulshada in lagu dhex dagaalamo ayadoo ramadaan lagu jiro xilli cibaado xilli nabadeed waxaa dhib ugu filnaa argagixisadaas kala dhib ugu filnaa marka laakiin waxaa soo badanaya dadkii aan ka warramayna ayaa xaafadaha ku soo badanaya inay guryaha garaacaan dadka inay qaxiyaan inay dhahaan laga guuro meesha in ay dadkii guryahooda ku askeeyay inay joogaan inay dhibaateeyaan inay biliqaystaan inay dilaan arrintaasi jid xun bay nagu wadaa marka aad iyo aad aan uga digaynaa aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh